maalinba maalinta ka dambaysa waxa magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ku soo badanaya meheradaha iyo guryaha uu ka kacay dabku iyadoo aanay lahayn magaalada Ceergaabo wax dandamisa haddaba saaka subaxnimadii hore ayay ahayd markii meherada ku yaala magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag uu ka kacay dab xoogani iyadoo meeshaasi ay ka maqnaayeen gabi ahaanba laamaha amniga iyo laamaha la tacaala dabka balse waxa meesha ka muuqanaya bulshada reer Ceergaabo mutadawacnimo ugu gurmanaya goobaha uu dabku ka kacay haddaba qaar goob joogayaashii ku sugnaa goobta uu dabku ka kacay oo la hadlay warbaahinta kala duwan ayaa waxay ka warbixiyeen sidii ay wax u dhaceen saameysay khasaare ballaaran oo aad iyo aad u saameeyay sikadadan oo ka mid ah gobolka Sanaag afakasti waa ilaahay keeno bas wax ka saxiliin ka hortag magaaladu ma lehe ka hortag sida darteed waxa dawladda aan ka codsanaa dabdabiskii gobolka Sanaag in sida ugu dhaqsiyaha badan نروح كلام كلمة قبتي قرية قبتي إن عاصمة أنت اللي نسبتنا حوي عاصمة أنت اللي وأنت سوى السردلي وأنت سبب ليش رأله وأنت سبب ليش رأله هذا هل حبوا دندم سفله إن جرمة دولة سوماليا نطيت هاي يا هطيت هاي دولة هو سميت نبأ مقالة واحد نوجنا هنا لهين دبدمس واحد نوجنا هنا لهين biyo ku filan waxaanu aragnaa maanta iyadoo lagu baqtiinayo ciidii waxaanu shalay ka warqabnay gobolka oo dhan oo booyadihii miyi iyo magaalada isaga yimid dadka biyaha siin lahaa oo biyo la'aan hoganayay riiga ceelasha Ceergaabo dabdamiska waxaanu ognahay inaanay dabdamisba lahayn waxaan u baaqayaa anigu cid kaleba ugu yeeri maayo waxaan leeyahay dhalinyarada gobolka Sanaag kaliya la hadlaya waxaan leeyahay war inaka waad ina aragtaan innaka wax qabsan karna aynu iska badayno wala Soomaaliland wala cid kale biyaha golaha deegaanka iyo dawladda Soomaaliland labadaba midna waxba inaga gelin ma cid baynu wax ka haysanaa oo guryaheena gubanaya iyo cid baynu golaha deegaan odayaasha waaweyn iyo dadka waaweyn meesha jooga wada shaqaystay oo iska sii socda kuwaya reer Ceergaabo silic bay muddo badan ku noolaayeen haddaba waxaan leeyahay laax waliba silka dhigtaa lagu qalaabaa leeyid reer Ceergaabo halka ayagaas dhigay Muuse Biixina waxaan leeyahay haddaan arrinkan iyo Ceergaabo wax ka qaban waa laga tasan oo reer Ceergaabo ma joogto 1990 ma joogto waxa joogta 2018 Muuse Biixi iyo wasiirada Ceergaabo ka soo jeeda waxaanu leenahay waad aragtaan gobolkii mar maaha laba maaha saddex maaha haddaanu hadli weynay waanu hadlaynaa oo waliba ficil baan haddii hadalkayga wax laga qaban waayo ficil baanu ku daraynaa Ceergaabo ciiduma maqna ceeloo Sanaag Allahumma salli ala Muhammad waxa weeye halka kale waa bartamihii Ceergaabo waxa gubtay xoolo aad iyo aad laxaad u leh ayaa gubtay magaalada dandamis ma leh dawladii noona iman waxa baqtiyay waa shicibkii maxay ahayd waxaanu leenahay khasaaraha halka ka dhacay iyadoo hadalku gowgowga yahay khasaaraha halka ka dhacay وعدنان عبد الرشيد علي TV-ga caalamiga Soomaali News wararka gobolka Sanaag Ceergaabo